طبعا oo wanaagsan aqyaarta hawada iga daawanaysa idilkiinba kuna soo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leeyahay fadlan hadaad igu cusub tahay subscribe dheh oo kambalelka taabo waxba kaama dhibayso like and share fariintana qaybta hoos igu reeb waxaan ka hadlayaa fadeexad fanki ayaa qabyaaladii siday u socoto waxa la galiyay fanki ayaa qabyaalada la galiyay Nairobi aqolo ogaadeena oo daarooda waxay ku qabteen barnaamij ay leeyihiin waxa bilada la guddoonsiinaya dadka ugu caansan kulli dadka ugu caansan waxa laga dhigo daarood oo u badan ogaadeen haday wari yihiin haday yihiin mujaajilistayaal haday yihiin kuwa hadla haday yihiin hadda aadan baradu calay ku dareen siyaasiga ugu saameynta badan geeska Afrika hadda fiiriya qola meel kaartada iyo qorshaha iyo waxa socdo bal eeg ilaahay idinku dhaarshay qola meel xafiis yar furatay waxay leeyihiin geeska Afrika iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika waxaan dejinaynaa dadka ugu saameynta badan haday naqal lahayd siyaasad haday naqal lahayd fan haday naqal lahayd hiday dhaqan haday naqal lahayd kuwa ruwaayadaha jira haday markaas waxay wada siiyeen wada ogaadeen kulli ogaadeen awoogin la gub hada awoogin la gub oo geel beera kulli waxay ka wada dhigeen ogaadeen marka midda igula yaabka badan kuwa kale waa faaqidaya kuwa kale iyo ruwaayadaha lagu siiyay wada ogaadeenka kuwa lagu siiyay ilaahay kuma samadiiday lagu siiyay siyaasadda lagu siiyay kuwa lagu siiyay faamos kulli wax anta faamos oo waxa la siiyay daarood qolada Nairobi firisa hatta hal Soomaalida kale way ku soo dari waayeen hal ceebta haysata hal ay waxay dheen waa qiimaantii sanadka la sameeyay waa tiina ugu dambeysay waay waa midii ugu dambeysay oo sanadkee la sameeyay dadka caansan Soomaali ma laha yaa Soomaali wax naga caansanaa jirta qof naga caansan ma jiro Soomaali ah bal waxay noo sheegayaan ka waran waxaan soo qaadanayaa arinta fanka marka arinta fanka fanaaniinta iyo qaabka loo qiimeeyay Suldaan Seeraar adeerkiis ayaa waday barnaamijkan qiimeynta hadda waa adeerkiis labaad oo aabiis lama adeer yihiin fanaaniintii fanaanka sanadka uu siiyay Suldaan Seeraar ilaahay idinku dhaash idinka idin weydiiyay Suldaan Seeraar goormu noqday fanaanka sanadka hal heeso waxa aan ka aqaan oo maqlo oo ii sheeg hal hees oo xamar jadiid ma aqaan xamar jadiid xamar bile miya mis xamar jadiid ma aqaan ma xasuusta xataa wallahi uu Seeraar leeyahay Suldaan Seeraar waana sanadkan markuu soo baxay okay xawaale aadan ilaahay idinku dhaarshay xawaale aadan maanta ma fanaan kala jirsan oo ka qatarsan oo ka faamoosan oo Soomaaliya jira xawaale aadan ما فنان ما أنت سلطان سيرار أولا آدم ما ترتمي كرا حتى ترتم قلي كرا مركي سلطان سيرار أذكيس وليه سلطان سيرار فنكا سنة كان أنت كواد قلي أو ترتم كيف فنكا قاضي بل فيري قبيلات هير كمريسو فيري أقادين إدارات كل شيء أقول معيان يوحي كل شيئين أوكي محمد بيكي من فنان كقطر سنة يجرو صوماليا وأف صومالي كويسة من فنان صومالي كويسة ومحمد بيكي كفى منصر أو قعد معان أو كم مرتبطا هيسوه قاضو أجره دل مريره من فنان كفي عن أجره أو كقطر سن ضيع دل مرش من فنان كفي عن أجره قدر كيو من فنان كفي عن أجره هذا عبد الرحمن من فنانات كفي عن أجرته قدر سليمان من فنانات كفي عن أجرته وإلهيكم اسم الدين قال اللبن العقل laga cunaa liiri waxa la yiri kaalimaha oo lagu gelin xataa ayadoo mutaysatay in kaalinta kuwada galiya waxa la yiri lacagta in laga cunaa liiri tartanka laga saaray bal waxay ku dhaqmayaan iyo qabyaalada ay ku dhaqmayaan iyo qurnimada ay ku dhaqmayaan fiiriye markaas waxay yiraahdeen ceebtooda Suldaan Seeraar afnaanka ugu qatarsan ah waxay tartameen la yiri qadarkiyo wallahi billahi qadarkiyo inuu sukaarin Suldaan Seeraar ma wallahi heesan balahe Seeraare heesa maanta lagu faano ama murtile ama YouTube ka hadda gal bal fiyuga jigjiga barigii la joogay barasanta style waxay ahayd boqorada jigjigo oo jigjigo dhan lagu faano Seeraar intuu jiray Suldaan Seeraar markaas intuu jiray markaas waligiis heesa murtile oo fiican oo laga daba dhacay uu qaado ma jirto marka xawaale aadan iyo maxamed BK iyo hadaraga aan soo tilmaamay Suldaan Seeraar gaari kara fiiri dadkan u jeedaan waa dadkii ilka case ka dhigay fanaan ilka case waxay ka dhigeen fanaan waxay leeyihiin waa boqorkii raabka hadda muxuu ku heesaa mataqaaniin hooyaday ku niiki eedaday ku niiki abareerteedan ku niikiyay hooyaday aan ku niikiyay ayaal xamaran ah oo ilka cas ku heesaa ayaal xamaran ah
cayaal xamalaan ahay boqorkii raabkaan ahay uu leeyahay markaas waxay leeyihiin waa boqorkii raabka waa boqorkii shanta Soomaali ceebtiisa ilaahay ceeb u dhex fadhiisiyo wuxuu sawir la soo galay Umar Cabdirashiid Axmed Madoobe iyo nin kale oo daarood ah iyo mid kale oo isla daaroodkooda markaas wuxuu yiri shanta boqor shanta Soomaali oo maanta kulantay shantu keenana waa daarood markaas irkaas marsiiyeen marka aqliga maanta socda waa aqli noocaas ah Suldaan Seerarow aan di weydiiyay Suldaan Seerar goormuu naqday fanaanka sanadka muxuu ku mutaystay fanaanka sanadka war maxaa lagu siiyay in fanaanka sanadka uu naqdo aw fanaaniinta kale Soomaaliyeed aw fanaaniinta ka faamusana oo ka caansana aw fanaaniinta ka codka macaana aw fanaaniinta ka murtida ficnaa aw fanaaniinta lejanka ahaa ilma adeeyaal gacmo daarood naga dhaaf waxa wadaan iyo barbaganka idaacada meediyaha gelinaysan iyo waxaan aad ku camilaysaan naga dhaafa war hada si dadka kala libintooda qofkiina aan waxba eena waxa leeyahay waa boqorka shanta Soomaali hal wiilo soo qaaday hal hees oo la yiraahdo xamar jiid iyo laba dhaga hal hees oo aslan leeyahay aw waxa leeyihiin waraam iskalaaju gaar xataa daaroodka hadda iskalaaj haday ka dhigi lahayn xogaa waxa leeyahay xawaale aadan aan lagu xumeynaa la dhihi lahaa iskalaaj haday ka dhigi lahayn xataa haday ka dhigi lahayn wax bay aaleed uma jeerteena laakiin waxaan hatta haddii ay ka dhigi lahaayeen gabadhii ii sheeg gabadhii kiin jaamac wax bay ahaaleed laakiin Suldaan Seeraar hadda sanadkan oo aslan fanaan naqdo la maqlay magaciisa oo wallaahi ah 2018 aslan la maqlay oo wax Seeraar sheegayo la arkay goorma marka Seeraar dad uu naqday goormuu Seeraar uu naqday fanaanka ugu qatarsan ee Soomaaliya goormuu Seeraar naqday ninka bilada dahabka iyo bilada la siiyo oo fanaanka ugu qatarsan ah bal waxaas wax Soomaali maanta ee maqli karto ad inta maqasho way maqashay ma aqaan waxay kaga aamusan yihiin intaan maqlin oo maqla awaala aadan iyo BK iyo ilaahay kuma samadiiday Hodan Cabdiraxmaan Yurub Genyo Dalmar ilaahay kuma samadiiday Dayaxdal Nuurshe Qadarkiyo hebelow kale kulli iskalaaji waxa ka qatarsan oo bilada dahabka qaatay oo kaalinta kuwaad galay Master Suldaan Seeraar Xaraaye geela barigu ilaalin jiray waxa la yiri xarka xataa ma ciisi jiray uu ka faka jiray markaas lagu leeyahay hadda 2 sano ka hor geelay ahaa markaas lagu leeyahay maanta wuxuu qaatay fanaanka ugu qatarsan ee Soomaaliya bal aqliga ogaadeenka idaaroodka waa aqli noocaas way down biladiina iyo hooyadiinba maxaa dhanaa wariya waxa bixisaan bilad ma waa tugnimo waxaad bixisaan waa doqonnimo waxaad bixisaan waa waxaad ku eewoodeen oo marada idinka dhacday dadka lacag ka cuntaan Seeraar adeerkiisa oo kan bilada bixiyo Seeraar adeerkiisa lacagta dadka ka cuntaa qaaliladan lacagta ka cunto kontanka kun u eli fanaaniinta lacagta ka cunto aad tiri isag waxa idinka dhigayaa fanaaniinta sanadka lacagtooda u eli kuwa siyaasiyiinta lacagta ka cunto lacagtooda u eli tuug gulale hooyadaana u tahay isag wax qiimee matid qabyaaladiiste qurun dhaleeyo la tahay matid maxaa yeelay cadaalad darra sameynaysaa aadan baradu cala Allah waa siyaasiga ugu qatarsanaa geeska Afrika aadan baradu cali waa dameer soo ku noqon kara dameer lo dhashay soo ku noqon kara siyaasiga ugu qatarsan geeska Afrika soo ku noqon kara waa geed aan waxba kala ogeynba xal wuxuu ku cashay aadan baradu cala daawadiis ma yaqaan markaas wuxuu leeyahay waa siyaasiga ugu qatarsanaa ugu saameynta badnaa geeska Afrika ilka case waa boqorkii raabka wariyada waxaad sheegaysaan waa diisnimo waxaad sheegaysaan ma aha Soomaalinimo waxaad sheegaysaan ma aha wax la dhageysan karo wax la maqli karo ma aha Soomaalida kalena waa cawaano waa dad hurda isaaqa iyo dirta iyo wax wada socdo iyo digil iyo miriflaa iyo hawiyaha iyo kulli waa jim iyo baashanaad waxaad tiin ma laha wax Allah waxaad tiin ma laha wax walba dhageysanaysan war waxaan ar-ri'ayatu nisfu min ad-dijara Abdullah Nuurdin Allah naxariista hadda kor wuxuu yiri ar-ri'ayatu nisfu min ad-dijara haysiintu waa ganacsiga barkiis waa laga badinaya marka haysiin badan ay badato haysiin badan hadda aniga 10 fanaani ugu qatarsan sanadkan sameynaya waan idin soo gudbinaya qiimeynta fanaanka ugu qatarsan 10 fanaan adigana waa ila wadaagi kartaa dius lay iyo geelay dhalaha sano ka hor geelay ahayo xarka cishin karin ma aha fanaanka ugu qatarsan sanadka waa idin salaamaya waqtiga idin wacnaado
إلهينا أيد حفظيه إلهينا وعن كبري كفكين يقريدنا إلهي مكلميو وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا كو الظلم قوضنا إلهي سوما لها كقبط باي باي